gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Buuhoodle ee qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa maanta booqday dhibanahan oo waxyeello ka soo gaadhay dagaaladii ka dhacay deegaanka Buuhoodle kuwaasi oo ku waayay lugta waxaana sidoo kale uu sheegay in lugta kalena ay waxyeello ka soo gaadhay ninkan oo sidoo kale saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu haysto caruur tiro badan isla markaana waxaas yahay sidoo kalena uu ku dhiban yahay deegaankani Buuhoodle wuxuuna walaalaha islaamka ee jecel khayrka ka dalbaday inay ka soo qayb qaataan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen ninkani sidii loo caawin lahaa waa kan ugu horeyn gudoomiyaha golaha sida aad ogtihiin ba nin laxaadkii Ilaahay siiyay uu ka qaaday kuna dhaawacmay oo ku waxyeeloobay dalka iyo diintiisa iyo dadkiisa isagoo difaacaya laxaadkiisii ku waayay baasaaka halkan lagu soo booqday ninkaas oo aad aragtaan oo in hor fadhiya oo lugaha miduna go'an tahay ta kalena ay jajaban tahay oo dhaawac tahay oo aan ku soconaynin lugo aan lahayn una naafoobay difaaca dadkiisa waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed ummadda reer Khaatumo dal iyo dibadba meel kasta ha joogeene inay soo caawiyaan deeq Xasan Gurud oo nala fadhiya wax dunyana aan lahayn oo dunyadiisii ay raacday intii lala tacaalayay laxaadkiisa ay dunyadiisii raacday 9 caruur ah iyo hooyadood ay u joogaan meel aad aragtaan isagoo aditaalkiisa aragtaan maxasa isagoo aditaalkiisa aragtaan ay wax ka sugayaan xoogiina beelay xoolihiisina ay raaceen waxaanu kala maalmi weynay inaanu ummadda u soo bandhigno kuwii wax u soo diray ee horay u soo caawiyayna Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ajar iyo xasanaad uu ka siiyo imikana waxaanu kala maalmi weynay wixii muslimiina meel kasta ha joogeen ummadda Soomaaliyeed ninka tabaalaysan inay soo caawiyaan wixii garan waaya isaga ama xiriirkiisa waaya waxay wax ugu soo hagaajinayaan chief caaqilka Buuhoodle abshir ka horeeya jaamac kadib bay ugu soo hagaajinayaan chief caaqilka abshir ka horeeya jaamac kadib bay ugu soo hagaajinayaan waxaan ka codsanayaa ummadda reer Khaatumo Suuriya Sanaag iyo Cayn dibad ama ha jooga ama dalka gudihiisa ha jooga dhammaan marka hore waa salaamaya salaanka bacdi qof walba wixii uu heli karo ee uu caawin karo inuu soo caawiyo intaasan wixii horay waxay soo tarayna iyagaas kale aakhirana iyaga leh ifkana iyaga leh waana u mahad celinaya dhibanahan oo sideedeen muuqata walaalaha islaamka ee jecel khayrka ka dalbaday inay ku soo caawiyaan wixii karaankooda ay ku awoodaan ayaa waxa uu sheegay in lagu soo hagaajinayo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Buuhoodle mudane Cabdi Farax Cali Cawil Cabdi Casiis Aadan jaamacadda telefishinka caalamiga ee Som News Buuhoodle